Soomaaliyeed waxaan tiray Macaali aan u bixiyay dumaashadeeda gurigayga oo ka dumaya waxaan ku sameeynaa maqaani waxaan u baahanahay talo iyo oo gabadhaas aytana waana u soo waanisaan walaalaheediyo fiidiyoga dhameyso bilaaw ilaa dhamaad commentigana wixii ra'yigiina ah oo abaayadaas oo la haboon bal la soo taliya ninkeeda wuu jecel yahay ayadana way jeceshahay marka gabadhaas guriga islaamid burburinaysan la soo taliya abaayadana u soo duceeyo marna waxa niyadeedu kusoo dhacday tirin madisha marna gurigaaga ciyaalkaaga ugu dhex baxdaa la soo taliya fiidiyogana dhameysta bilaaw iyo dhamaad waana mahad hadda hore ila joogtana ku joog cimri caafimaad wanaagsan allahna ku barkeeyo meel walba adduunyada ka joogtaan ilaahay idin xifdiyo dhammaantiin waan idin jeclahay waxaan idinku jeclahay ilaahay dartiisa walaalahaygiyo waxaa qisada la soo wadaagtay abaay Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed waxa ku sameeyana Macaali iska dhehena abaayadaas waxay kamid tahay qeyr ilaah siiyo gabdhihii marka oo social media YouTube qaasatan ku cusbaa oo fiidiyoyaalka iyo share gareey jiray oo subscribe ka dadka asxaabta family iyo caabi jiray marka cusbaa oo zero laga soo bilaabo oo ogtiin dhamaantiina gabdhahaas ay kamid tahay marka dhowr jeer ay ugu tiri qiso ku sheeg xaqiiqo marka badanana ma sahleelin waa iska taqaanaan qof iska saaxiib ciyaal aydan heeday marka qisadii aydan ila wadaagtay oo waxay tiri abaayo wiil oo muddo aan isjecleen oo wax isla soo baranay oo jiiraan ahayn aad isku jecleen tiray bacda cudur daar oo family waalid wixii kiimaado waan soo guuleysanay wuxuu noqday jaceelkii hergalay ama guurkii hergalo noqday alxamdulillah ilaahay wuu u fudeediyay waan isguursadeen lamaano qurux badan iyo qoys qurux badan way noqdeen ma sha Allah tabarakallah marka abaayo waxay tiray abaayo macaan waxay dhahday waxa gurigeyga oo ka dhismi laayahay amba mar walba gurigeyga oo dartiis u burbura amba sababteeda u burbura dumaashadeeda subhanallah horta labada qof is jecel horta maxaa loo helaa qof oo mucaarad ah ma aqaani wixii sabab ah marka waxay tiri abaayo ninkeyga wuu jecel yahay anna waan jeclahay waalidkeyga wuu jecel yahay waalidkiisna waan jeclahay taas mushkilada oo nafsi waqtiga hortaagan dirto wiilka waalidkiisa hooyo macaan uma noola Allah u naxariisto taasan soo korsato hooyadiisa camal jirto way jeceshay tiri mar walba waxay ii xanaanaysaa sida gabadheeda oo kaleente anigana waa jeclahay waa ninkeyga jeclahay hooyadiisa labaad waayo taasan waxa aqaad billahi ka taaganahay oo gurigeyga u burburaa oo gurigeyga u dumaaya waxay tiri waa dumaashadeeda tiri ninkeyga mar walba waxay xaabishaa inay ugu dirto mar walba waxay xaabishaa inay nacam sawir qaldan iga bixiso mar walba waxay nacam rabtaa gurigeyga inuu dumo ninkaan nin bini aadam waaye marmarka qaarkiisa shaydaan iska qaadi karo marmar inuu warkeeda soo qaato way jirtaa way dhacday tiray inkastoo badana oona soo qaadanin taasna baay shaydaan shaatar way tiray horta ilaahay guriga ku badbaadiyo baay macaanto marka waxa rabaa tiray walaalaha kugu xiran inay la soo taliyaan marmar waxaan go'aan ku gaaray tiray gabadhan in ruuxa dhaafiyo subhanallah horta jariimaha isku gelina kullee walaasheeda quruxda badan marmar waxa oo go'aan ku gaaray tiray in gurigeyga oo u dumiyo darteeda oo guriga dhanba uu tago ninkeyga jecel ina ugu tago marka waxay dhahday marka gabadhaas maashideeda tiray sida qof xaas la qabo kalintada uma dhaqantay tiray sida igu loo dhaqmayso marka walaalaha kugu xirnay tiray waxa ka codsanaa awalan duco iyo talo insha Allah baay la soo taliyo wixii oo talo oo xaqiinana talo waati ilaahay waa xaqiin insha Allah duu ilaahay idmo tan labaad maxaa la baaynaha loo soo duceeyo inuu gabadhan ilaahay ka reebo oo ilaahayna guur qeyr qaba aydan oo keena gabar la qabo maahan taasuna guriga haray habeen kama baxday tiro oo dirisa reerkinahay mar walba waxay xaabisha inay gurigeyga burburiso wallahi waa wareer waarto gurigaaga dhexdiisa qofka familkaaga kugu soo bilaabo mushkiladaas ma dhamaato oo mushkilad familiyeed qof banaanka ma iska celinayso qof gurigaaga iska celinay wallahi dhibaato waay abaayo ilaah horta ku gargaaro walaasheeda samirna Allah ku siiyo gurigaagana Allah ku barakeeyo ninkana bini aadam waaye sax marmar uu hadalku uu qaado karaa inta badan intoo ma qaatay tiradaassan marmar oo hadalada oo walaashiisa nacam oo la safanayo dhici karto
mana xumey karo oo man la dagaali karo walaashiisa wuu jecel yahay indiisuna ka jecel yahay markaa dhaho walaasha oo sheekada kusoo qaado walaasha dhaho waxay tiri walaashii afaaraheeda ka bax aniga warkaaga haddii war ikaa sheegtaataa xaaskayga warkeeda ka baxaa dhaha mana dhihi tiray oo dhowr jeer arkay tiray ayadoo igu direyso oo isagana shib oo iska yahay oo ee u dhakata camal iyo whatsappkiisa hadal ay ugu soo duubtay nacam ilmihii maanta saan waa wareega jirtaa kan mana wareegi tiray aroos iyo maalnimo aado qof gurigeeda jecel oo soojkeeda jecel oo ninkeeda adeecdaan ahay maxaa la dhahay gabadhaana raadsan nafta ii keentay kulli horta aniga baayo waana la taliyay waxaan ku dhahay horta iska samir qofkaana qof dumar waaye ayadana horta beri jasaadeeda way qaadan doontaa meel kale ilaahay ka sii doona waayo haddiina guursan way guursan doontaa iyadna dumaasho lagu soo taxaa markaas xanuunka dareemi doonta taas inay iska dhaafto maadaama hataa waa weydiiyey waxaa dhama dhoocil yaraa ma gabar yaraa ma gabdhaha soo baxay maya ugu tiri waa gabar weynay ugu dhahday oo dhowr iyo 20 jir ah ama jaamacadda soo dhamaysa qof aqoon-yahan waa inuu qof aqoon-yahan qofku mashquulo mayse ahayn mahano waa qofka duu diin barto akhlaaq u leeyahay hadduu aqoon soo barto wax walba yaqaana meesha bulshadii iyo wax walba inuu asaga wacyigelin lahay hadduu asaga xumaado maxaa hagaaga waa macalinkii xumaaday noqonaysa Soomaa marka baayin halo soo duceeyo meel walba adduunka ka joogtaan u soo duceeyo walaashiina Cali oo bixiyani halo soo duceeyo waxay dhahday gabadhaas walaali gurigeega ku dumaya hadduu wax dumayna gabadhaas duminayso baryahan aad ani ninkeyga isku kacsanahay waayo waana darteeda muddo badan oo soo dul qaadanay saniin badan aan jaceelkaygu soo xirbiyay markuu ilaahay ugu guuleeyay oo lamaana guuleysta aan noqonane gabadhaana dhaxda ka soo baxday gabadha intay ugu karantayna waa saniin tiray caruurna waa u dhashay waa dumaashida gabadhan waxa kula talilaa waxa dhiila waa dumaashidaada waayo walaalkaaga macaan xaaskiisa ciyaalkiisa ta xaaska taanacbanta bal ciyaalka fiiri ciyaalka oo walaasha dhashay oo walaalka dhalay fiiri laana waa dhiigaaga waa qalbigaaga walaalkaaga oo damig bilixmig waaye iyo damcaana tahay waxa ku dhihi lahay adigani guri islaamid ha duminin walaalay macaani gurigaaga ilaahadna ku adkeeyo abaaydas waxa dhihi lahay qalbigeeda la qaboojiyo oo Allah soo hanuuniyo wax kala dhaheeno ma jirto taas guri islaamid ha duminin adoo ka cabad dumisay la mid tahay tan kale wixii tira hataa wixii xaabileey tira gabdha saaxiibayalkeeda mid ay ka qurux badan tahay inay keentay tiraha heblaay ma guursatid heblaay ma la guursatid wixii tira alxamdulillah ilaahayna wiilal iyo gabdhana waa igu asaaqay wixii tira hadaa bal wax oolaad dhal leh maxay ugu sameey lahayd bal hadaa gabdha leh dhal lahay Soomaalida inkasta oo nimanka dhahaynan gabdha leh dhashay gabdho leh maxay ugu sameey lahayd alxamdulillah ilaahay uu iyo wada sameey wiilalna waa dhalay gabdhana waa dhalay Allah ku barkeeyo oolaadaada wixii tira baaydaas stress weyn igu hayso gurigeygana maalmahan eri iyo buuqa ka jiro ciyaalkayga taa iga wada xanuunsan yihiin marka la soo duceeyay tire idinkana u soo duceeya inuu ilaahay gurigeeda u badbaadiyo gabadhana sharteeda ilaahay ka badbaadiyo guri walba qoys walba Soomaaliyeedna Allah badbaadiyo anaga dhamaantina Allah na wada badbaadiyo gurigeena Allah na badbaadiyo marka gabadhaneeta haduu guursadan afra ilaahay u baneeyay oo afarxaas ilaahay siiyo ayada ma wadiidan hataa banaanka iyo kansay tiran afarxaas ma wadiidan waaba jecel tirasagana uu jecel yahay raasan gabadhan gurigeega bi ay dariiq inay burburiso u diyaar ah alla yaabanahay waxa ka galabsadane ma jirto hataa waa xaabilahay tirina isjeclaysiyo waa xaabil intaan sano dhan waxa dulqaad u soo sameynayay tir oo halaan dhan u soo dulqaadanay bal ama soo rujuucda dumaashida bal ama saan karoonata inay ka sii darto unay tiray waxa kala ma lahan hataa hada shopping aan wax soo sameeyo oo hadiyad iyo wax oo sameeyay tiray doqontiya wax ii keentay leedahay tir ana maqlaayo walaalkeed adoo intuu shaqada jiraan intuu banaanka jiraan ima ixtiraamto wax xirtay tiraha bal markaas hada u jawaabane hadalkay bedeshaa oo walaalkeeda igu dirtaa marmara waxa dhici kartay tir telefoon inaa wax yar ka wada murno ee codkeyga ee duubto keega bis ee maqashiiso ee keedane ee qariso ee soo siiso marka wixii tir anigana faado uma ihi tir saaiida ee wax qoys burbursune oo qoyska u burburis ee diyaar ugu tahay anigana uguma ihi tir wiili walaashiisina iska hor keeno marka maxaa sameeyaa mara xaabila madisha mara xaabila qofka maxaa ku sameeysaa shirka ma u gashaa mar walba shaydaanka maskaxdeedu wuxuu iga sheegay tir gabadhaasaytane qaatib ilaaha ka taaganahay ummad Soomaaliyeedna ay soo wada duceysay dhahday idinka waa ducada waa xaqiina insha Allah baayda loo soo duceeyo ilaahna ha ka reebo gabadhaanayta gurigeedana Allah u barakeeyo iyo ciyaalkeedana Allah xafido
soojkeedana kuley ninkeedana inuu warka walaashiisa oo maqlo ma ahan inkastoo rag isku mid ahayn dad waxaa jira rag waxaa jiro xaaskooda warkooda maqlaayo oo aan maqlayn kan familkooda iyo rag waxaa jiro kan familkooda lamaantana maqlaayo oo gabadha masaakiinta ah kaanona shaarac laga soo bata camal ah inkastoo ixtira nus oo yahay marna oo qaata hadalkeeda tiray marna oo saqaadanin raasan waxaan waa bini aadan haddana waa rag bini aadankan hataa rag iyo dumar way ka wada sameeyeen marka maanta aan lagu diro shaydaan shaatar waaye shaydaan qoyska dhisan wuu jecel yahay bisaad guriga dhisan wuu jecel yahay gabadhaana shaydaan ilaa loogu soo dhigay ilaaha kasoo dhigna ma dhihi karnee ilaaha ka dul qabto qoyskeena allah u barakeeyo ninkan usoo duceeyo walaalahaygiyo meel walba adduunyada ka joogtaan maxaan lahaa macalaha loo soo duceeyo inuu ilaahay gurigeeda u badbaadiyo abaayadaan allah soo hanuuniyo lasoo taliyo insha allah abaayadaaneetane oo guriga burburinaysana insha allah wixii oo waana iyo tusaalena waa xaggiina insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh